munaasabadani oo ka qabsoontay hotel Haldoor ee magaalada Boorama ayaa ahayd xafladda daafurka dalladaha Damal iyo Maandeeq ee Sheekh Cali Jawhar iyo Sheekh Axmed Salaan ee ururada danwadaag ee degmada Boorama. Ujeedka madashani ayaa daarnayd konton urur oo ku midoobay horumarinta dhaqaalaha, kor u qaadista arrimaha bulshada, horumarinta siyaasadda iyo awoodsiinta xubinta iyo xubnaha ka mid ah ururka Moonlight NGO ayaana fulisay barnaamijkani oo kaashanaysa Nafis Network. waxaana kala soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adaha Save the Children, SOS, SAYS NGO, Ayoda, Now, wasaaradda arrimaha bulshada, wasaaradda horumarinta reer miyiga, xogayaha gobolka Awdal, Salaadiin, Xildhibaan Axmed Cali Xaddi oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Boorama iyo mudan kale. Barbilow waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyeyaasha dalladaha Damal iyo Maandeeq iyo Siciid Axmed oo ka socday Moonlight NGO oo ah madaxa mashruuca. waxaanu sameynay konton urur oo urur kasta uu ka kooban yahay 20 oo uu ka kooban yahay oo labada xaafadood ah. ujeedooyinka loo soo barnaamijka waa saddex arrimood. ta koowaad waxa weeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista arrimaha bulshada. labo, horumarinta iyo kor u qaadista arrimaha dhaqaalaha ee hooyooyinka. saddex, horumarinta siyaasadda iyo awoodsiinta xubinta iyo xubnaha ururka ka mid ah. xubnaha ay ka kooban waxa weeyaan 950 xubnood oo hooyo ayay ka kooban yihiin. waxa kale oo halkaasi yaala hantida guud ee ururada waxa weeye 37579 dollar oo ay sameeyeen muddo 2 sano 35 urur kaliya. labada daladood ee halka fadhiya maanta lacagta ama hantida ay haystaani waa 45,000 oo dollar 579 dollar oo labada daladood Maandeeq iyo Damal ee halka jooga maanta. waxaan asaasnay waxa weeyaan 2001 waxaan ku bilownay 20 dumara 20ka dumari ismay aqoonin danna ma haysanin. waxaan ku ururnay geed hoostii alla Maandeeq Allah ma sha Allah tabaaraka ururadan aan ku midownay waxba garan maayo intii hore iyo assalaamu calaykum. intaa kadib hadalka waxa ka daba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ku sugnaa goobta. midowga labada daladood waliba hadda isku imanayaan ay noqdaan kuwa halkay maanta taagan yihiin meel ka fiican joogsada. wixii kaalmo een u wada joognayna fursad haday soo baxaana xaq hore aad noqon doontaan insha Allah. dadaalka iyo juhdiga aad imika aasaasteen rajaynayna inaad halka hore uga sii marin doontaan. Onta triga waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan aad niila shaqayn doono. gacmo furan baan nagu soo dhaweynaynaa inaad wanaagana ku sii wadaan qooyinka kalena ku fidisaan waxaad qabsataan wada shaqaysaan isna caawisaan. wax kasta oo golaha deegaanka ku xidhmeeyo degmada Boorama ku xidhmada inaanu soo dhaweyno in dadkii la tuso inay iyagu wax wada qabsan karaan, inay wax wada yeelan karaan, inay is caawin karaan, inay isgargaari karaan. waxaan naga sidaa barasaanka gobolka fariin ah inuu nabogaadinayo inuu hawshiina mataqaanaa ku faraxsan yahay barnaamijkiina xogtiina xafiiska taalo runtii lagu farxo waxna qabsan kara heer la gaari kara. naftayda ma xaji karo markaan ka hooyooyinka dayaraha karsanaynin maantana halka ay taagan yihiin anaga iyo cidii oo bay oo tahay 40 dumar aqoon oo kuliga gali jiray maantana shaqaysta. waxaynu heli doonaa inaynu la soo baxno xildhibaano baarlamaan oo dumarka iyo kuwa deegaan oo dumar ah. diyaar baan idin hamaleynaya waa idin bogaadinaya waana ku faraxsanahay inaan barnaamijka ka qayb qaadano. Shuxufi Cisqi MM TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.